magacaygu Xabsi Cabdi Yuusuf waxaan ka mid ahay milyan iyo barka Hargeysa ku nool ee u heelan Hargeysa qurux badan oo mustaqbal leh ka dhalinyaro ahaan waxaan ka mid ahay dhalinyarada mustaqbalka kale wadanka han kale ee bari ka maalin doonayeen inay wax ka noqdaan wadanka kulleena dhalinyaro haddaynu nahay wadankeenu wuxuu u baahan yahay inaynu ka sii fikirno mustaqbalkiisa iyo ka ubadkeena Cabdikariin hadduu maanta magaalada inoo qurxiyo bari ka maalin uu ka tagayaa inaga u hadhayna كل قف كستوي شعلي ميل قروح بدن إنه وهرا أما ميل قروح بدن إنه دحله عبد الكريم أحمد موجي وحن كدوران إنه كونا بوريني دمان دلني يرد الصومال لان يشوف عاصمته يعني قبل كستي شو كان أما عد بحين تكقاطع عاصمته إنه عضيان ما يرك مستقبل كعبد الكريم أحمد موجي أنا جو صوابين دور سبابات كو عبد الكريم أحمد موجي شخصية ديسو يو محل الشكل جيسو قف كستوي وكدريم كريم يهي قف دجن دا عبد ما يهاو الكرنيمة كم وقته maxaa la yiraahdaa in ku dooran karno mustaqbalkeena in ku aamini karno marka qofka intaas haday ku filaan weydo kaasi qabiil iyo waxyaabo kale ku filaadaan kulli anigu lama qabiilihi Cabdikariin Axmed Mooge laakiin waxaan laahay qaran waxaan aaminsanay qabiilku waa wax in kala saaray Soomaaliya oo dhan laakiin hadii mid ay ka hadal xaqiiqada Soomaaliland oo dhan waa hal qabiil maxna Soomaaliland oo dhan wax ka kooban tahay kama wada hadalkaas waa hal qabiil oo kaliya laakiin waxaan qaranku waa hal qof maxna waa hal jid oo isku damqanaya qarankeennuna haddaynu ka fikirno inaynu mar u doorano cidda mas'uulka ka noqon karta antideena iyo maxaa la yiraahdaa caafimaadkeena iyo biyaheena iyo nadaafadeena iyo deegaankeena inuu qurux badnaado waa inaynu inagu ka dhalinyaro ahaan maanta inagu dhalinyarada oo 75% lagu sheego inay yihiin mustaqbalkii dalka oo dhalinyaro ah inaynu doorano dadka hal doorka ee la midka Cabdikariin Axmed Mooge iyo isagoo aan maanta leeyahay caasimada inaynu u hiil iyo hooba oo hagar baxno aynu doorano waa marka labaad dhowr qodob baan halkan doonayay inaan ka yiraahdo caawa aniga uga faa'iideysanaya madashan quruxda badan in ku kulanay mid horta waa duco oo koow ducadu waa wax wanaagsan qofka bini'aadamka ah inuu loo duceeyo waa wax wanaagsan Cabdikariin Axmed Mooge runtii wuu codsaday dhowr jeer meel uu ka hadlayna wuxuu ku codsaday in loogu duceeyo xilkan horta maayar waxaan ku leeyahay waan ku ducaynay marka koobaad Ilaahay ku guuleeyo xilka mas'uuliyadana kii ka soo baxay Ilaahay ka dhigo waa marka labaad qodobka labaadna waa dhiirigelin Cabdikariin Axmed Mooge waxaan ku dhiirigelinayaa horta inaanu maxaa la yiraahdaa maanta dad la'ayn taageerada ugu badan Soomaaliland oo maxaa la yiraahdaa caasimada joogtana oo haysto dhalinyarada maayar horta waxaan ku leeyahay marka koobaad ha u baqanin waxa laga hayay qaar baalaas waa maayarka Facebook laakiin waxaan u sheegayaa Facebook inuu yahay meesha kaliya ee maanta bulshada joogto Facebook ayaan la idin ka dhigin wax kale Facebook waa inagii dhalinyaro ahaan dadkan uu leeyahay waa dadkii Facebook dadkii caasimada ku noolaaba Facebook bay joogaan marka waxaan sheegay horta maayarka Facebook inuu yahay maayarka caasimada dhabta oo dadka dhabta ay jooga Facebookana xalay dadka dhabta ee Facebooka joogaana dad kala ma ahayn anaga yihiin aanu taageeran iyo heel iyo hoobana sidaanu meel walba uga garab taaganahay aanu tarunta ahna oo la garab istaagin insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo horta qofka ku ma garanaysaa ku fikiraya maayar waxa jira Facebook iyo maayarkana taa ku fikiro nolosha dhabta ah ee xaqiiqadii waxa weeye de social media platform wadon waxay shay ma garanaysaa ku hadlaysa iyo waxay dooranaysaa waxa niyadeeda ku jira soo lagu soo bandhigo marka dhammaan caasimada dadka jooga waa meel ay ku soo bandhigeen cid ay doonayeen taas baa maayar taageero kugu fulan inaad maxaa la yiraahdaa ku fikirtay inay milyan barka Hargeysa jooga ugu yaraan inaad milyan qof hanatay oo qalbigooda aad ku jirto maxaa la yiraahdaa waan ku kalsoonahay inaad insha Allah ku guuleysan doonto midna waan kugula dardaarmayaa maayar kulli maanta wada hadlaysaa musharaxiin badan oo kale iyo doorashooyin hore soo marnay way hadleen mid kasta nin kasta markuu aan kursiga fuulin waxyaabo badan buu yiraahdaa oo ay ka mid tahay wax maxaa la yiraahdaa wax muujiya daacadnimo dabaxsanaan wax muujiya waxyaabo badan waxaan kaaga fadhinaa inaan kugula dardaarmay inaad noqotid kii dardaarankaas qaata ee noqda qof maxaa la yiraahdaa inta nooga muuqatay wanaagan ku raacnayba noo meel mariyo insha Allah wanaagaas nooga muuqdo bari ka maalin isagoo xilka haya maxaa la yiraahdaa amaanada iyo mas'uuliyadda aan saaranayna sideeda uga soo baxa naga shaqaysanay noo shaqeeyo insha Allah ilaahayna ka dhigo adiga inta kula midkaan ilaahay ku soo dhaweeyo oo ilaahay u fududeeyo xilkaas maxaa la yiraahdaa waxaan ka baxayaa oo ku soo gabagabeynaya hadalkaygan horta Cabdikariin Axmed Mooge maayar aad baan ku salaamay aadna waan kaaga mahad celinayaa madashan iswaraysigan iyo maxaa la yiraahdaa afurka dhammaanna waan ku taageersanay haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliland intii qabiil iyagu raacaysa de qabiilku kulli meel wada maayo waxa leeyahay soo raaca oo guusha soo raaca insha Allah de kulli kuraastuna way badan yihiin xildhibaano badan oo tayo leh
aynu ka fikirna haddaynu nahay dadka dhalinyarta ee maanta quwadda iyo maxaa la yidhahdaa codkaba haysta aynu berri mustaqbalkeena ka fikirno. cabdikariin waa lodkii naga horreeyay innagaa berri meeshan imanayna. waxaan idinkaga baxayaa doorta dadka karaamada iyo sharafta ka muuqato, daacadnimada iyo dadaalku ka muuqdo ee waddankeena u hagar baxaya insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.